asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaan warbixin ka haynaa Soomaaliya iyo South Africa waxyaabihii ka dhacay iyo Somaliland iyo dowlad deegaanka caqabado waaweyn ayaa ka dhacay waxaanu ku hormaraynaa Ghana oo laba qodob ah Ghana waxay mudaharaadyo ka samaysay shacabka reer Ghana warshad weyn oo halkaa ku taala oo ay South Africaanka ay lahaayeen maysan boobin ayuu laakiin waxay ku sameeyeen wax la yiraahdo midabta koor ayay ku sameeyeen waxay ku yiraahdeen fadlan nooga baxa dalkaanaga lacagtaanada ayaad qaadateen dalkaanaga ayaad inaad qaadataan shaqada bad qabsateen iyo wax la halmaanay dhammaan erayadii South Africaanka ay ku lahayd dadka Afrikaanka halka jooga Cape Town iyo meelaha deegaanadaas joogay وعلى وحي كيرادين أيارو يدي مات هير وحي قال ورشد هالكاس كتها اللي أي شقين ويدي وحكبحة يا وحصو قلبة لواي وحال يدي وتلك الأيام نداولها بين الناس قنية كافجس قنية أي قنية كافجس أفريكانكو واسكو باهي مكة لمارمو وحان كاين صومالي أو ضلكيدي كاسي سعود أو كاسي قوقلس Ghana ويجوان South Africa Nigeria Mozambique Zaire Burundi Kenya Uganda Ethiopia iyo Sudan iyo South Sudan wax aad u dhulka wada joogan way ka wada qaxlukoodi waaye hadaba halkaasi South Africaankii waxay ogaadeen in ayakuna loo aabayeeli maadaama dalkii dadka ay ka saarayaan oo mid ay dilaan iyo mid ay dhacaanba ay ka dhigeen waxa kale oo jirta Ghana maanta Soomaaliya waxay u soo dirtay askar nabad ilaalin ah oo booliis ah ay u soo direen timirtii hore dawladda Ugandhiskii Burundiskii iyo wixii joogay Djiboutiankii waxay qaban waayeen ba kuwan qabanaya ciidamadan Ghanaiska waxa loo soo diray koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo iyo Beledweyne Hirshabeelle ayay wax ka qabanayaan ayagoo badan ayay baabuur ka soo degay diyaarado ayagoo dhar jaalla ah qaba ayaa ka soo degeen tolow kuweena maxay qabanayaan ciidamadeena tirada badan kuwa maamul goboleedyada kuwa dawladda federaalka ee kala duwan maxay qabanayaan magacaahi bariyo ku wataan dhaqaalaha lagu bixinay Ghanaiska iyo Ugandhiska iyo Djiboutiyaanka ma kuwa Soomaaliya la siin maayo maxaa yeelay lacagta cidii bixinaysay ayaa kuwaasi ku naas nuujinaysa timirta hore ayaa dab loo laayay waayahay Jubaland warbixin baa ka socota maanta oo taariikhdu ahayd 14 bisha 6 2026 waxaa soo qalan jibiyay ciidamo tirabeel ah oo arkaysa muuqaalada ciidamo aad u badan ayaa soo qalan jibiyay ciidamadaasi duq Axmedaha ayaa u furay tababarka hal sano dheeraad ayuu tababarkooda u socday marka gaadiid tira badan ayaa loo keenay Cabdibilayaal ah iyo baabuurtii Imaaraadka u keenay ee tawyada ahayd ayaa loo keenay waayahay Jubaland ciidan badan bay leedahay ciidan badan loo yaqaano hanqad iyo la yaqaan برجاح لو يقان أبرس تراويش بلاي لا ده special force أيه لاذا طلب محي قان دونان وكبر سوي إنه محي قان دونان ما ديجا ماذا مقن يعادي دونان مسه ماشى هذا هره أي كل عند عبد البرولي ملاه إها كلا يمي عادي دونان وكبر سوي إنه وحي كصباح جبلان أحمد محمد إسلام وما تعيد ماذا وصحري وركاس ayaa wuxuu yiri sidan waxa kamid ah maandhood hadalan dhageysanay Xasan oo leh ma aqoonsani iyo kan doorashada state-ka ka dhacaysa Jubaland waa mid Jubaland ba aqoonsi uga baahan tahay dadkeedana iska leh wax sharciyada oo dawladda dhexe kaga xidhan ma jirto haday noqoto waxaas ma aqoonsanayo waxa raacayo waxa weeye adiguna waxa lagu aqoonsanaya ma sababta isaga maanta waqtigiisa dhamaaday teeramkiisii ka gudbay waxa uu maanta ku jira ay tahay xadgudub uu sameeynayo
dib ha loogu soo noqdo gobasha axmed maxamed islaam axmed madoobe oo jubbaland muddo badan joogay oo madaxweyne ka halkaasi ayaad dhegeysanayseen axmed maxamed islaam wuxuu ka hadlay siyaasadda xasan sheekh maxamuud ayuu ka hadlay wuxuu yidhi xasan sheekh ayaa la weydiiyey jubbaland wariye ayaa weydiiyey wuxuuna yidhi anigu ninkaasi maamulkiis iyo waxyaabaha ku saabsan dowlad oo ma aqaano madaxweynena oo ma aqaano axmed maxamed islaam yaa mike labada isaga wuxuu yidhi jubbaland baa iska leh madaxnimadkeeda iyo doorashadeeda iyo dowladnimadkeeda jubbaland bay u taallaa xasan sheekh mid u taalla ma aha hase yeeshee xasan sheekh maxamuud talada dhulka ha soo dhigo maandeedkiisii waa dhammaaday saa darteed wixiis waa nin tooxsi iyo eryo kale oo madaxweynuhu xasan axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maanta ku hadlay ayuu halkaasi ka jeediyey markii uu usoo xidhayay ciidamada jubbaland ee sanadka dheeraadka akaademiyada ku taala jaamacadda kismaayo duleedkeeda ciidamada halka lagu tababarahayay ayaa hadalkaas yidhi intaa haddii aan kaga baxno axmed maxamed islaam iyo ciidamadu usoo xidhahayay tababarka dowladda somaliland ninkii la yidhaha cabdiraxmaan ciro ayaa wuxuu u kici timay dalkaas iyo israa'il asagii ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benjamin netanyahu ninka la yidhaahdo ayaa maanta halkaasi tageen waxayna isla kaashadeen sida somaliland dowladnimadeeda iyo xornimadkeeda iyo dadnimadkeeda iyo jiritaankeeda iyo aqoonsigeeda ay u horumarin lahayd ayay halkaasi u tageen booqashana waxay ku tageen masjid al aqsa oo la rabo safaarad somaliland ay leedahay in laga furo halkaasna warbixin dheer ayaa la akhriyey shaloon baa halkaa laga dhahay waayahay somaliland hawl baa u taalla soomaaliyana hawl baa u taalla waayahay haddaa intaan kaga baxno dowlad deegaanka waxaa la sheegayaa dad u dhashay soomaaliya dad u dhashay in lagu xidhay 60 iyo abaaf qof in lagu xidhay dhulka loo yaqaan majeerteniya ama puntland in lagu xidhay kuwaasoo ay laleeyihiin qaarna waxay leeyihiin dahab bay ka shaqaynayeen dahabkooda waa laga dhacay inkastoo xaqiiq aanan haynin laakiin wararka baraha bulshada yaalla ayaa arrintaasi qeexaya dadkii intii la taxaabay ayaa adhisaababa jijiga laga dejinayaa ayagoo laleeyahay tahriib ayay u socdeen iyo maya tahriib ma soconine waxay ka soo horjeedeen maamulka madaxweynaha mustaf cagjar ninka la yidhaahdo dowlad deegaanka madaxda ka ah madaxweynaha ka ah ayay ka soo horjeedeen ayaa halkan la yidhi saa darteed dadkii arrintaas ayaa ku timid laakiin dadkii waxaa ka hadlay odayaasha beesha kumade ama afsame ama ogaadeen isku wada jira ayaa ka hadlay oo halkaasi hadal ku jexjeexay oo hadal cadcad ayay kula hadleen puntland iyo odayaasheeda oo madaxweynaha u yahay siciid cabdullaahi deni iyo odayaashaba oo la yidhi faroolaad sidaas samayn jiray laakiin waa la iskaga daba teghayaa iyo waxaan inii qabnay dad aan walaalanahay oo aan isla nahay beesha kablalax majeerteen ama harti iyo ogaadeen halkaasi 60 abaaf qof ayaa la qabtay marka qaarna waxay leeyihiin tahriib kuwana maya waxay leeyihiin on alef ay ahaayeen ururka xoreynta gobolka ogaadeniya ama dowlad deegaanka kuwaasoo on alef markay soo xarootay ay garabyo badan u kala baxday hadda ayaa waxa la ninkii la yidhaahdo in hirmoogiyo tiim ayaa waxay samaynayeen inay sameeyaan dowlad ama ururka inay dib boodhka uga jafaan oo dhalinyarada mar kale dabka la geliyo ayagoo loo midaandayni oo la fiirinayni kuwii horay intii jaraanjarta looga soo gudbay haddanana dowladda etoobiya laysku dhiibay bila siyaasad ayaa halkaana yaa la sheegaya